Saacadihii u dambeeyay waxaa baraha bulshada ay Soomaalidu ku xiriirto aad loo hadalhayay guurka fanaaniinta caanka ah ee Bashiir Hanuuniye iyo Najm Nashaad. Sawir ay lamaanahan si wadajir ah uga soo muuqdeen oo lagu baahiyay baraha bulshada ay Soomaalidu ku xiriirto ee Facebook iyo Instagram ayaa hadalhayn aad u weyn ka dhex dhaliyay dadka isticmaala barahaas. Dadka qaar ayaa aad u soo dhaweeyay xiriirka labadan lamaane ee ka wada tirsan bahda fanka Soomaaliyeed, halka qaarkood la arkayay iyagoo dhaliil u jeedinaya xiriirka cusub ee lamaanahan. Muuqaal dareen badan xambaarsanaa oo ku faafiyay saygii hore ee Najm Nashaad Cawaal Dheer bartiisa gaarka ah ee ku leeyahay aaladda TikTok ayaa hadalhayn badan ka dhex dhaliyay dadka isticmaala bartaas. Muuqaalka ayaa laga dheehan karay murugo iyo niyad jab aad u weyn oo ka muuqatay wajiga saygii hore ee Najm Nashaad Cawaal Dheer. oo kale maalmo yar uun ka hor ayay ahayd markii Najm Nashaad ay barteeda gaarka ah ee ku leedahay aaladda TikTok ku baahisay muuqaal u muuqday macsalaamiinta nolosheeda hore iyo soo dhaweynta nolosheeda cusub. Lamaanaha dhawaangalka ah ee Bashiir Hanuuniye iyo Najm Nashaad ayaa horey nolosha ula soo wadaagay fanaaniin kale oo ka tirsan bahda fanka Soomaaliyeed. Bashiir Hanuuniye ayaa horey nolosha ula soo wadaagay fanaanada caanka ah ee Farxiyo Fiska, halka Najm Nashaad ay horey nolosha ula soo wadaagtay laxamiistaha weyn Cawaal Dheer. Ma ahan markii ugu horeysay ee laba fanaan oo ka wada tirsan bahda fanaaniinta Soomaaliyeed ay iscalmadaan, balse guurka labadan ayaa hadalhayn badan ka dhaliyay baraha bulshada Soomaalida, maadaama dadka badankood aysan wax war ah horey uga hayn xiriirka qarsoodiga ah ee ka dhexeeya lamaanahan dhawaangalka ah. وذي رحمداد مرنا قرينين ربي وذي رحمداد مرنا قرينين رونو نمر ردكي رسولك وناك سنا رونو نمر ردكي